بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah Cumar Ismaaciil Maxamed waxaan maanta halkan saxaafadda u soo fadhiistay maamul goboleedka Awdal State inaan ugu hambaleeyo munaasabadda Ciidul Adha awgeed ummadaha Islaamka shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Awdal State meel kastoo ay ku nool yihiinba waxaan leenahay kulli caam wa antum bikhair sanad wanaagsan sanadkiisa Ilaahay noo gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ummadda Soomaaliyeedna waxaan Ilaahay uga baryaa Ilaahay ka dulqaado dhibaatada iyo tacadiyada iyo mataqaana xanuunka iyo gaajada iyo jahliga haysta Ilaahay baan uga baryaa Ilaahay dawlad cadaalada oo ummadda wada gaadhay Ilaahay noo sameeyo waxaan kala ugu baaqayaa waxaan ku raadaa ummadda Soomaaliyeed inay doortaan hogaamiye u qalma oo ummadda Soomaaliyeed gees ilaa gees raas Gamboni ilaa loo yacdo cadaalad iyo mataqaana iyo sinaan ku dhiqi karaya in la doorto aan la dooran nin waxaan ku raadaa laaluush ku soo baxa taasi waa waxyaabaha aanu soo marnay waxaa loo baahan yahay cashir ka barnaa la rabaa in cashir ka barano oo aynu dersi inoo noqdo inaan hore ugu guula daraysanay madaxweyneyaal aan ku dooranay mataqaanaa laaluush baarlamaan aan ku dooranay laaluush iyo shacab maxaan ku rahdaa ku shaqaynaya laaluush waxaynu u baahannahay nin ummadda iyo dalka iyo dadka daacadu ah oo aan lagu dooranin laaluush oo aan lagu dooran xaaraan oo aan lagu dooran dulmi kaasaynu u baahannahay ilaahayna waxaan ka rajaynaya ilaahayna ummadda usoo saaro ninkii dhibaatada iyo tacadiga ka dulqaadi lahaa ilaahayna taasaan ka baryanaa waxaa kaloon rabaa inaan halkan shacabka reer Awdal State uga hambaleeyo munaasabadda Ciidul Adha awgeed uguna hambaleeyo kullu caam wa antum bikhair meel aad joogtaan baa reer Awdal salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa intaa ka bacdi waxaan leeyahay in waxaan kaloon rabaa inaan wax yar ka hadlo ninka barasaabka maanta barasaabka Hargeysa ee usoo igmatay shacabka magaalada Boorama ee xarunta maamul goboleedka Awdal State oo hadalla deelqaafa maanta ugu hanjabay saxaafadda ula hanjabayay mataqaana waxaan ku rahdaa saxaafadda iyo tviyada iyo xaqu dirirka reer Awdal oo ka soo horjeeda maamulka SNM waxa uu sheegay ninkaasi inay jiraan idaacado iyo tviyo halgan ku jira oo ka soo horjeeda maamulka SNM waxaan u sheegaynaa Shiine oo leenahay Shiinow odayaasha u hanjabi maysid tviyada u hanjabi maysid saxaafadda xorta u hanjabi maysid dadkana afkooda qaban maysid laakiin waxaan kuu sheegaynaa inay jiraan halgan hubaysan af adin iyo maal oo shacabka reer Awdal State ku jirto rabaana inay kaga xoreeyaan maamulka SNM sida goofanaha ku naxay shacabka reer Awdal liigooda waxaan leenahay adigoo qaawan baad ka tagi doontaa Shiino gobolka adigoo qaawan baad ka tagi doontaa malaayiin qof kumaan qof oo haddaad xidho aad disho waxaa jira rag u halgamaya xuquuqda iyo xaqa ay u leeyihiin reer Awdal inay aayahooda ka tashadaan inay maamulka Hargeysa aan lagu talin waxaan ognahay maamulka Hargeysa inuu yahay dhulboob waxaan ognahay inuu maamulka Hargeysa yahay cumaqabatayn dhaqaale waxaan ognahay maamulka Hargeysa inuu yahay cumaqabatayn siyaasadeed ku haya gobolka Awdal waxaan ognahay maanta gobolka Awdal cashuuraha laga qaado inay yihiin cashuuraha ugu badan waxaan ognahay maamulka Hargeysa inay badda gobolka ay xidhay waxaan ognahay maamulkaasi inuu eeraboodada gobolka la xidhay waxaan ognahay waxaan ku dhaha kastanadii gobolka waxaan ku dhaha kasoo geliyay borderska in la xidhay baan ognahay haddii ay jiraanna laga qaado cashuur dheeraada xataa waxaa la garay in meydka la cashuuro waan ognahay in xitaa meydka la cashuuro reer Awdal dulmigaas iyo tacadiyadaas bay u dulqaadanayaan reer Awdal waxaan leenahay intii aad dulqaadanaysay waad dulqaadateen waxaad u dulqaadateen Cabdo Aayar waxaad u dulqaadateen Ramaax maantana waxaad u dulqaadanaysaa Shiine يعني مالين بنين إن لا يدين كانوا يدين أمر كتاجلية أو يدين عجب جبلية أو يدين هنشبع أو دول قادر ما يسان أنت إنك بدن إلا دول قاتنا وحرامي حديث بواحد قفك مسلم كا لما قد لما قنينه تاسو معناه هي قفك مسلم كلا عمر ماشى عمر كردعو أو دبات كسو قادو مرلمات كمان نقد قفك مسلم كي ريا أوضل واحد ليه هاي المحن كل هذا هورا واحد يسوى مري عبدو أو وجدين dhibtoodin geystay waxaad soo maray waxaan ku raadaan Ramaax oo aad weydeen dhibtoodin geystay maanta waxa idin yimid Shiine waxa uu gaaray inuu u hanjabo saxaafadda xorta waxa uu gaaray inuu u hanjabo tviyada waxa uu gaaray inuu u hanjabo qof kasta oo ka soo horjeeda maamulka Hargeysa waxaan u sheegaynaa Shiine Hargeysa ayaa ka soo horjeedna kumaan dhalinyaro ayaa ka soo horjeeda waxaan ku raadaan maamulka Hargeysa diyaarna uma nihin inaan taageerno maamulka Hargeysa waxaanu diyaar u nahay inaanu dhisno oonu u halganno oonu u hawlgalno oonu maal iyo naf aan u horno maamul goboleedka Awdal State taasaan u sheegaynaa Shiine iyo inta la midka ay Hargeysa looga soo dhiibo fariinta waxaan u sheegaynaa inaanu fariin dambara Shiine soo qaadi doonin
shiine iyo inta la midka ah ee fariinta hargeysa ka soo qaadna waxaan u sheegaynaa inaanay fariin damba soo qaadi doonin shacabka reer awdal maalmaha ka mid a iyagoo qaawan ay ka bixi doonaan nimankaasi. marka waxaan leenahay reer awdal waan dulqaadanay intaan dulqaadanay intii nabad ilaalin waad ilaaliseen. maanta nabadii waxay idiin geysatay oo inoo keentay inaan dhulkeennii iyo dadkeennii iyo maxaan ku dhaha badeennii iyo riboodkeennii ma la xanibo la daldalo. yani haddii dhulkaaga la daldalo oo baddaada la daldalo yani wax meel aad ku noolaan kartaa ma jirto. aakhirkana waxaana dadka yaa la iibin doonaa. waa taa maanta dhulkii dadka laga daadgureynayo ee cid kale lagu beerayo. waxaan u sheegaynaa dad badan oo mataqaanaa maanta ku hadaaqa waqooyiga hargeysa dhulka lahaanshihiisa waxaa iskale shacabka reer awdal baa iskale, laakiin deganaanshaha gobolka cid kasta deganaan karto iyo degi karta. gobolka awdal cid loo diidi karo oo ummadda soomaaliyeed ka mid a ama hargeysaha ka yimaado ama burcaha ka yimaado ama garowga ka yimaado ama kismaayaha ka yimaado ama muqdishoha ka yimaade, qof kasta oo soomaaliya gobolka awdal meeshuu dano ka degi karaa. xaq iyo xuquuq buuna ku leeyahay, waana ummad soomaaliyeed. qof kasta oo soomaaliya wuu degi karaa gobolka awdal, laakiin sheegasho inuu dhulkaa la sheegto oo qof deganaa uu sheegto way kala duwan yihiin. reer awdal dhulka iyagaa iskale, goobaha iyagaa iskale. ciddii laakiin deganaanaysa waa loo ogol yahay. ku qabso ku qaadimaysta maanta hargeysa wadaa, berrin wax kale soo wadaa. maanta iyadoon aqoonsi iyo wax kale aan la haynin oo maanta reer awdal ay dhibaatada ay tirsanayaan ayaa halkaa la marayaa. berri toola haddii aqoonsi yimaado waxaan u sheegayaa nimanka u ololeeya somalilan hala aqoonsado. somalilan cid aqoonsanaysa ma jirto. somalilan runtaan idiin sheegaya cid aqoonsanaysa oo ilaahay og yahay ma jirto. somalilan ilaa iyadu ay iyadu is aqoonsato cid aqoonsanaysa ma jirto. maalinta ay reer somalilan is aqoonsadaan ama dadka waqooyiga is aqoonsadaan baa la ictiraafi karaa somalilan. laakiin ictiraaf ay caalamka mataqaanaa ay caalamka laga raadiyo ma yaalo. inta dulmiga iyo tacadida ay ka jiraan gobolkaasi mataqaanaaye waqooyiga ictiraaf ma jiro. taasaan u sheegaya. waxaan ognahay in ma laga xuso somalilan ay 18 May laga xuso caalamka o dhan. beel baa xusta beelaha waqooyiga degan ka mid a, laakiin cid kale ma xusta dee. beelaha ka midina dee dadka ma afduubi karto. beentana adduunku wuu ogyahay, adduunku wuu ka dheragsan yahay beenta lagu hayo hargeysa. hargeysa waxaa lagu hayaa waa NGO ay beele ku shaqaysato iyo in yaroo xulafyo ku shaqaysato, laakiin ma aha wax ummadaha waqooyigu ay u dhan yihiin oo ay wax isku og yihiin oo ay ku walaaloobeen. maaha. nabad baa lagu heshiiyey, nabaddii ilaa haddana waana ogna halkay taagan tahay. marka waxaan leenahay reer waqooyi yaanu daalin, yaanu yaanu dhaas ka tuurin, yaanu isdhega tirin. reer waqooyi hadduu nabad doonayo iyo hadduu wanaag doonayo ha isku yimaado. haddii kale waxa weeyaan halkaasaa la joogayaa, saasaa la ahaanayaa. reer awdal waxaan leeyahay markaasi hadalka usoo gabagabinayaa, waxaynu u baahannahay midnimo, waxaynu u baahannahay hoggaan, waxaynu u baahannahay cadaalad, waxaynu u baahannahay sinaan. taana waxaynu ku samaysan karnaa gacmaheenna ku samaysan karnaa. cid kale cadaalad inoo samayn mayso, cid kale nabad inoo samayn mayso, cid kale nidaam inoo samayn mayso, cid kale inoo samayn mayso. waxaynu u baahannahay danaheenna cid kale kama fikri karto, kamana turjumi karto. mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna cid kale inaanu anu daba fadhiisanana waa xaaraan weeye. waxaynu u baahannahay markaasi tala midaynu u baahannahay, hoggaan midaynu u baahannahay, siyaasad midaynu u baahannahay, dhaqan midaynu u baahannahay, hoggaan maxaan ku dhahdaa waxaynu u baahannahay maamul mida oo ummadda mataqaanaa reer awdal ay u dhan yihiin oo lagaga hoos baxo maamulka hargeysa. waxaan rabaa oo kalaan halkan ka tahniyadeeyo ugaaska guud ee beelaha Gadabursi, ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble, oo dhowaan shirkeeda ku qabtay magaalada Ottawa ee xarunta dalka Canada, kaasi oo ugu baaqay shacabka reer awdal inay mataqaanaa inay dhinac looga soo wada jeesto goobaha mataqaanaa dhibaatada lagu hayo ama goobaha la daldalay. arrintaasina waxa weeye waan kusoo dhaweynaynaa. ugaaskana waxaa leeyahay noogu hogaami waxa ummadda reer awdal u baahan tahay markaa inaad noogu hogaamiso. ugaaska waxaa fariinta ugu faraya waxaa leeyahay ugaas waxaan ugu baahannahay inaad nagu hogaamiso waxa shacabka reer awdal ay u baahan yihiin. shacabka reer awdal saad hore u sheegtay uma baahna inay hargeyso hoos fadhiyaan, waxay u baahan yihiin ayooda ka tashadaan reer awdal. waana kugu garab taagannahay, waana kugu soo dhaweynaynaa. waxaanan ku leenahay mataqaanaa nagu hogaami oo hoggaanka noogu noqo ummadda reer awdal waxay cadaaladeeda iyo wanaageega iyo samahaygu ku jiro. aad iyo aad baan idiin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabka reer awdal state, ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.